waxaa takfiirintaa ka mida waxa uu leeyahay sidaasoo kale maxamed bin cabdilwahaab waxaa noogu filan kitaab la yidhaha kashfu shubhaad oo uu alifay maxamed cabdilwahaab wahaabida sheekheeda maxamed cabdilwahaab iska badaa culammada islaamka inuu aqwaashooda u noqdeen muwaxidiinba ooma aqoonba inay dad ilaahay waxido oo muwaxidiin oo muslimiin ay yihiinba ma uusan u aqooninba islaamka dhan ay ku ijmaaceen inuu ahaa calaa dalaalatin baadi uu ku tagnay laanna wuuna dambeeyey oo ninka zamankiisu ugu dhowaa oo qarnigii 11aad 1111 markay ahayd buu dhashay hadda 1400 iyo xoogaa baa hadda lagu jira horta ugu dhowaa hadda waqtigiisu ugu dhowaa dadka markuu hadda isagaas hadda u imaaday ninkaan hadda lagu sheegayo hortiis bay culimmadii baa jirtay oo saxaabadii taabiciintii salaf saalixii a'immadii islaamka oo dhan baa marka uu yimid sacuudi uu ku dhashay saad ogtahay aabiis nin sheekh oo weyn buu ahaa cabdiwahaab nin weyn buu ahaa walaalkiisu nabaan bin cabdiwahaab baa la dhihi jiray nin caalim oo weyn buu ahaa labadoodaba way ka digeen ninkan fitniya balaayaa ka soo noqoto dad badan baa sababtiisa ku baadiyoobi doonto yidhaahdeen way ka digeen marka waa nin culimmadii islaamka ay ka digeen oo kutubtooda taariikhdana ku qoran maaragtay inuu ninka ahaa nin fitnaysan oo ahlu dalaal saasay culimmada islaamka o dhan qoreen imaamkii weynaa ee muftiga xaram la odhan jiray marka laga dambeeyey ka dambeeyey imaamu daxlaani ayaa qoray oo kitaab ka qoray siiradiisa ka qoray marka maxamed bin cabdiwahaab nin saas wuxuu ahaa ninaad caqiidadiisu wuxun tahay buu ahaa nin culimmadii islaamka oo dhan gaalo ku tilmaamay buu ahaa nin dadkii laayey oo dhameeyey buu ahaa marka waa nin dee wuxuuna ka yimid sacuudiga weliba dhinaca najdi la yidhaahdo markuu nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin buu duceeyey oo wuxuu yidhi allaahuma baarik lana fii shaamina wa yamanina ilaahu shaam iyo yaman ilaahu noo barakee kaas saxaabadii waxay yaa rasuulallah wa fii najdina kaasuu nabigu ducada haddana ku celiyo wuxuu yidhi allaahuma baarik lana fii shaamina wa yamanina 3 goor markuu nabigu duceeyey yuu markii afraad wuxuu yidhi hunaaka zalaazilu walfitanu wa bihaa yadlicu qarnu shaydaan meeshaas fitno iyo zalzalo unbaa ka soo baxayso shaydaanka geeskiisaa ka soo baxay mid markii la gooyena ku kalaa ka soo dhalanay kowgii musaylamatu kadaab ninkii la odhan jiray oo rasuulkoo noolba soo baxay oo nabinimada sheegtay ayaa halkaa ka soo baxay markuu rasuulku dhintay ee abubakar uu khaliifka ahaa baa lala dagaalamay meesha yamaamo la yidhaahdo dagaal xun baa lagula galay oo saxaabada ku le-atay 30 kun oo saxaabi ka badan baa ku dhimatay wuuna halkaas lagu dilay saxaabadii raggii ugu akhyaarsanaa baa meeshaas ayaa ku dhamaaday oo weynaa oo dhan baa ku dhintay isla meeshii ayada ahayd buu maxamed bin cabdiwahaabna ka soo baxay meeshii nafteeda dirci waxaa ka mid a waxyaalaha takfiirinta keenaya dadka muslimiinta oo la gaalaysiiyo oo la dhibaataysiiyo waxaa ka mid a hadalka uu maxamed bin cabdilwahaab ku sheegay kitaabkiisa rasaa'ilu shakhsiya safxada 227 uu leeyahay waxa xaramaynka iyo basra iyo ciraaq iyo yaman lagu samaynayo waa shirki ilaahay loo shariig yeelay waxaa sidaasoo kale soo naqlinaya addurar saniya fi lajwibati najdiya juskiisa koowaad safxada 162 ayaa hadalkiisa lagu soo naqlinayaa waxaa takfiirintaa ka mida waxa uu leeyahay sidaasoo kale maxamed bin cabdilwahaab sida kitaabka addurar saniya fi lajwibati najdiya lagu soo naqlinaya juska 8 safxada 189 wuxuu leeyahay maxaa cabdilwahaab maxaa ka wanaag badan waxa mid reer baadiyaha ka mida uu ku hadlay hadalka nin reer baadiyaha ka mida uu ku hadlay alla maxaa ka wanaag badan hadal aad u wanaagsan weeyuu leeyahay wuxuu yidhi ninkaasi markuu noo yimid reer baadiyaha ah oo shay islaamnimada ka mid a uu naga maqlay ayuu wuxuu yidhi ashhadu annanaa kufaar waxaan qirayaa ayuu leeyahay inaan annagu gaalo aanu ahayn bimacnii huwa wa jamiicu lbawaadi ayuu leeyahay maxamed bin cabdilwahaab wuxuu u jeedaa asaga iyo wax alla waxa baadiyaha jooga oo dhan waxaan qirayaa buu leeyahay inaan gaalan ahayn baan qirayaa wa ashhadu ana almudawic alladii yusamiinaa islaaman annahu kaafirun waxaan qirayaa buu leeyahay wuxuu yidhi waxaan qirayaa ruuxa macnaha macallimka mudawic waxay yidhaahdaan ruuxa macallimkaa dadka qur-aanka bara ayaa mudawic loo yaqaan
macallimkii annaga islaam nagu magacaabayo muslimiin naga dhigayay inuu gaal yahay ayaan qiraya. hadalkaasaan hadallada wax aan maqlo waxyaalaha ugu wanaagsan hadalkaas ayaa ka mid ah uu yidhi waxyaalaha ugu wanaagsan oon maqlo. marka waa takfiirin weliba aad loogu xadgudbay wey. waxaa noogu filan kitaab la yidhaha kashfu shubhaat oo uu alifay maxamed cabdullaahi wahaabiyada sheekheeda. wuxuu ka soo hadlay qur'aan kariimka wuxuu yidhi dadka mushrikiinta ah aayado badan ay ku daliishanayaan sida alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ilaa idinku dhaashay mushrikiina qur'aan daliishata. marka wuxuu yidhi haddii ay qur'aankaas kuu daliishadaan waxaad tidhaahdaa wamaa dakartahu lii ayuha almushriku min alqur'aani aw kalaami nabiyi laa acrifu macnaah. sulka kafka si gaal waa gaal. waxaad tira gaal iyo qur'aanka aad sheegayso iyo xadiidka aad sheegayso ma aqaan macnihiisa ku dheh. markaasuu wuxuu xukumay muslimiintoo dhan in ay laayaan maxamed cabdulwahaab marka qabri ay galaanna la soo qufo yaan muslimka meelna u badbaadin. muslimiin ku dhow 100,000 ayuu maxamed cabdulwahaab gacanta ku laayay. hadeerna kitaabaa lesta waxaa laleeyahay waa shaykhul islaam. markaasaa soomaaliya waxay leeyihiin shabaabkaa la iska qabtyaa dhahaya wahaabiyadii shabaabka keentay oo maxamed cabdulwahaab manhajkiisa faafisay ruuxoodiyaa dhahaya. kitaab kasta oo uu leeyahay wahaabiya ama maxamed cabdulwahaab sida taariikhu najdi iyo cinwaanul majdi iyo siirat maxamed cabdulwahaab taariikhdooda dhan waxa ku qoran muslimiinta kulli in la laayo ay gaala yihiin. mabda'a nimankan ay xambaarsan yihiin waa mabdigii wahaabiga ahaa maxamed cabdulwahaab oo qarnigii 12aad soo asaasay weeyaan. marka mabda'aas muxuu yahay ninkii asaasayna muxuu ka aaminsanaa culimada aqwaashooda in loo noqdo ahlu cilmiga in la raaco iyo culimada in la ixtiraamo muxuu ka aaminsanaa iska badan culimada islaamka in aqwaashooda u noqdee muwaxidiinba oo ma aqoonba inay dad ilaahay waxido oo muwaxidiin oo muslimiin ay yihiinba ma uusan u aqooninba muxuuba u noqdaa aqwaasheeda magaalo aqwaasheed buu noqonaya dadu gaalo u yaqaan miya aqwaasheeda u noqonaya. taa marka tusaalaheedii iyo shawaahideedii ayaan marka keenaynaa. kitaab ayagu ay diyaariyeen oo qoreen oo waxyaabo badan oo mabaadidooda iyo taariikhdooda ay ku qoreen oo waxaa jira la yidhaahdo ad-durar as-saniya fi al-ajwibati an-najdiyah la yidhaahdo. kitaabka juskiisa 10aad boga 51 ayaa waxay ku soo qaadeen hadalka maxamed cabdulwahaab uu leeyahay ayagaa qoray ayagaa daabaca ayagaana faafiya ma aha annaga cidda faafisa ama daabacda ama dadka u akhrisa ma aha annaga. wuxuu yidhi maxamed cabdulwahaab oo bogaa iyo mujalladkaas uu ku yidhi laqad talabtu al-cilma wa'taqada man carafanii ana lii macrifa. wuxuu yidhi daalibulcilmi baan noqdo cilmigii baan dalbay oon raadiyey dadkii i yaqaanayna waxayba ictiqaadiyeen moodeen buu yidhi inaan macrifo leehoon aqoon leehay bay moodeen buu yidhi markaas ayadaa. wa ana fii dalika alwaqti laa acrifu macnaa laa ilaaha ila allah walaa acrifu diina alislaam. marka iyadoo hay moodayaan buu inaan wax aqaanoo daalibulcilmiga ahaa oon mashaayikhda hoos fadhiyeyna wuxuu yidhi macnaha laa ilaaha ila allah ma aqoon diinulislaamna maba aanan aqoon buu yidhi wax uu yahay diinta islaamka ma aanan aqoon sidaas ayuu yidhi. markaasuu wuxuu raaciyay hadal uu ku sheeganhayo waxaan markaan dambe uu faafinahayo waxa asaga si kale ugu yimid inay tahay wax culamo uu ka qaatay inaynan ahayn. markaasuu wuxuu yidhi qabla hada alkhayr alladii manna allahu bihi khayrkan ilaahay igu galladaystay ka hor wuxuu yidhi macnaa laa ilaha illa allahuna ma aqoon macnaa diini lislaamna ma aanan aqoon ayuu yidhi. markuu daalibulcilmiga ahaayo uu mashaayikhda aadayey oo mashaayikhda uu cilmi ka raadsanhayay weeye wuxuusan waxaa aqoon laakiin markuu dhinac u booday ayuu wuxuu sheeganahayaa sida dibba kaaga caddaan doonto in waxaan asaga si gooni ay ugu yimaadeen cid ugu sheekh ah iyo cid ugu macallin ahna midnana aysan jirin ayuu markaa sheeganahayaa. markaasuu weliba wuxuu yidhi si inuusan waxa kan basanadba u lahayn uu dadka ugu caddeeyo ayuu wuxuu leeyahay wakadalika mashaayikhii maa minhum rajulun carafa dalik. sidaa waxaa la mid ahaa buu yidhi mashaayikhdaydii baa la mid ahaa hal qof oo arrintaa yaqaanay laguma arko. arrintuu sheegayana waa tee macnaa laa ilaaha ila allah macnaa diin alislaam. laa ilaaha illa allahu macnaheeda mashaayikhdeedao dhan ma aqoonin buu yidhi diinta islaamka macnaheedana mashaayikhdeeda ma aqoon buu yidhi xaggee ka keena marka in loo waxyooday asagaa sheegan doona. ayib wuxuu yidhi marka asagoo ummadda kale usoo jeesanhaya ayuu wuxuu yidhi faman zacama min culamaaءi alcaarid annahu carafa macna laa ilaha ila allah aw carafa macna alislaam qabla hada alwaqt aw zacama ana mashaayikhahu axadan aw zacama min mashaayikhihi axadan carafa dalik faqad kadaba waftara walabasa cala annaas wamadaxa nafsahu bima laysa fiih. bal hadalkaa u fiirsa wuxuu yidhi qofkii culammada gobolka caarid la yidhaahdo degan waa gobol ka mid ah mandiqada najdi la yidhaahdo ka mid ah
qofkii kamid ah ama sheekhi kamid ah oo sheegta biir culimada halka joogta kamid ah inuu macna la ilaaha illa allah yaqaanay ama macnaha diinta islaamka inuu yaqaanay qabla hada waqti biir waqtigan waa waqtiga hadeed waqtiga nabi ma soo bixin waqtiga uu leeyahay waqtiga asuu joog waqtigan ka hor qofkii sheegtu yiri inuu la ilaaha illa allah macnaheeda yaqaanay ama uu diin islaam macnaheeda yaqaanay wuxuu yiri qofkaas ama mashaayikhdiisi yiraahdo yiri mashaayikhdeeda qof kamid ah yaqaanay arintaas oo diinta islaamka la ilaaha illa allah yaqaanay faqad kadaba waftara dambu shay wa rabbana aburtaybi walabasa ala an-nas dadkana waxa isaga dhixiyaacinaya yiri talbiis buu sameynaya ومدح نفسه بما ليس فيه وحنا اسكو امانه يا بير وحسن هيسن او نفتيس ان كسغنين ايو اسكو امانه يا لكن وقتiga asagu uu joogo oo qarniga 12 asagu uu joogo uu soo baxay oo mabdi isagu cadaystay hadda waa la fahmay bileey ma nooyda la soo diray marka hadda waa la fahmay bileey macna la ilaaha illa allah waa dad fahamsan baa la helaya asaga ay atbaaciisu ku jeedaan soo maaha hadda nabi cusub oo dadkii fahamsiiyay lama soo dirine mashaayikhdi uu ka qaadan lahaana gaalnimo ku shaabadeeyay xagee kale yimid marka waxaas ninka saa u hadlay ma u maleynaysaa inuu aqwaalu ahli ilmi u noqonayo oo ahli ilmiga uu ka qaadanayo waxa nusuusta lagu fasirayo kala wa balla ragaanu marka ninkaas atbaacdiisi weey inay hadda maanta la soo fariistaan aqwaasha culamadan raacna qolyahan dariiqooyinkan waa looga samirsan yahay ay yiraahdaan dariiqooyinku soo ku shaafiiciyada ma soo ku ashcariyada ma soo ku qaadiriyada iyo ma aha dariiq kala duwan oo intisaabahayo ku dhagan ma waxay sameynayaan culimadii maxay ka yiraahdeen dadkii lagu yaqaanay Soomaaliya inay taa ka fiirsadaan yaa marka loo sheegaya marka been abuurka inta leeg tayib haddaan sii wadna marka wararkooda waxa kamid ah kitaabka aan sheegnay oo ad-durrus saniyah fi al-ajwibah an-najdiyah juskiisa koowaad boga 57 ayuu wuxuu ku sheegayaa oo ku cadeysanaya bi anna al-ulamaa wa mashaayikhuhum wa mashayikhihim la yafhamuna diin al-islam culumadii joogtay oo soo gaaray mashaayikhdoodii iyo mashaayikhdeedii dhammaantood wuxuu yiri la yafhamuna diin al-islam waxay diinta islaamka yaqaanaan iyo waxay ka fahamsan yihiin midna lama arko markaas wuxuu yiri walam yumayyizu bayna diin muhammadin wa diin amr ibn luhay wuxuu yiri diinta nabi muhammad iyo diinta amr ibn luhay ma bayna kala aqoon buu yiri nimanka culimada loo daba fadhiyo oo diinta loogu noqonahay inuu ka soo gooyo oo in aqwaashoodii loo noqday in culimanimo laga aaminay islaamnimo in loo aamino oo dadka ka celiyo rawaay moogta aqwaashi hal loo noqdo marka waa ay aqwaasha loo noqonahay culimadeele horta cidee way cid aqwaashada loo noqonahay diinta Umar bin Luhay muxuu ahaa ninkii Umar bin Luhay ninkii la oran jiray Umar buu ahaa Umar ma ahayn Umar bin Luhay waa ninkii sawaa'ibta iyo balaayada iyo asnaam badan iyo jideeyay oo baqaayaadkii diinta nabi Ibraahim ay ka haysteen dadkaas ka baabi'inayay oo gaalnimo fara badan horseeda ayuu ahaa marka wuxuu nimanka culimada loo haysto diinta nabi maxamed iyo diinta Umar bin Luhay maynan kala aqoonin biir niman kala soocayo oo farqiga u dhaxeeya garanahay waa diinta shirkiga iyo asnaamta la caabudaya ahayd iyo diinta nabiga kaleey salaatu wasalaam oo la yaqaanay ayuu wuxuu leeyahay maynan kala aqoonin markaas waliba wuxuu leeyahay alladii wada'ahu lil arabi diintaas arab u wadciye markuu yiri wuxuu leeyahay bal diinu amrin indahum diinun sahih wuxuu nimanka culimada islaamka loo yaqaano diinta Umar bin Luhay waxay u yaqaanaan biir diintii Umar bin Luhay waxay u yaqaanaan diin saxiix ay u yaqaanaan bal fiir marka culimada islaamka wuxuu ku sheegayaa diintii shirkiga iyo asnaamta ahayd inay diin sax ah u yaqaaneen marna wuxuu ku sheegayaa diinta asnaamta la caabudayo diinta nabi maxamed inayna kala aqoonin culimada islaamka ayuu ku sheegayaa ninka hadalkiisu saayahay iyo atbaacdiisu ma u maleynaysaa inay aqwaal ahli ilmi u noqdaan ahlu cilmiga waxa adigu u taqaanood ixtiraamayso aqwaashoodii madaahibtoodii aad haysatid waa kuwa ayagu ay u yaqaanaan diinta Umar bin Luhay bay sax u ahayd diinta Umar bin Luhay ayay sax u yaqaaneen diinta iyo diinta nabi maxamed mayna kala aqoon dadka ayagu ay u yaqaanaan ilaahan ka magan galnay kuwa aqeedadooda inaan qaadano ilaahay baan weydiisanaynaa kuwa inuu naga badbaadiyo